14 ruux oo dhaawacyo halisa ay ka soo gaareen qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa waxaa la gaarsiiyay cisbitaal ku yaala magaalada Muqdisho kadib markii dawladda dhexe ee wadanka Soomaaliya ay u soo dirtay diyaarad khaas ah oo markaasi dadkaasi lagu soo qaadayo. Solo Maxamed Solo wariyaheena jooga magaalada Beledweyne ayaa warkan halka ka soo diray. dadkii shalay ku dhaawacmay qarax ismiidaaminta ayaa maanta loo dhoofiyay magaalada Muqdisho ayadoo diyaarad ay soo direen wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga ee qaranka Soomaaliya. garoonka diyaaradaha waxaa ku sugnaa xubno ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo xildhibaano iyo xubnaha ka socda wasaaradda arrimaha gudaha. waxaa ilaa 14 qof oo dhaawac loo qaaday magaalada Muqdisho. gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka oo asaga dhankiisa ka hadlay ayaa wuxuu sheegay in ay dadkan yihiin kuwa halisa dhaawacyadooda. masiibadaas oo in loo xasuuqo dad rayid ah oo hadda adiga iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo ay wasaaradda diyaarad soo dirtay adna aad hore soo raacday marka gudoomiye dhaawaca waxa waaye hadda diyaarad saaran 14 xubnood inta geeriyootay waa 16 xubnood oo geeriyootay dhaawaca fudud oo isbitaalka ku reebnay inta waa dhaawac cuslaa ilaahay caafimaad ha siiyo gacanta ka gardarno dishay الله كجازية جميع كسودو والسلام عليكم. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha waxa uu sheegay in ay geyn doonaan dhaawacyadan magaalada Muqdisho. dad badan oo runtii shacab ah oo waxba galabsan oo masaakiin ayaa meesha dhib ku soo gaaray horena waa uga tacsiinayna meediyaha ummadda Soomaaliyeed dhammaan u tacsiinayna gaar ahaan ummadda ku nool gobolka Hiiraan. runtii sida arkaysaan dhaawac ayaa saaka la qaadaya oo ilaa xalay ilaa shalay walaalaha hiil walaal ay gacanta ku hayeen ay si diyaaradan waa ka xunnahay wasiirka arrimaha gudaha shaladii hore ayuu amray in markiiba diyaarad la soo diro laakiin hadda ilaahay ma qadarin dadaal guud baa jiray laakiin maanta bay arrintii ay hirgashay. waxaan rajaynaynaa insha Allah oo ducaynaynaa kuwa dhintan ilaahay jannada ka waraabiyo kuwan dhaawacana ilaahay bogsiyo. dawladda heer madaxweyne heer golo wasiir maaragtay prime ministerka xildhibaanada iyo gudoomiyaha baarlamaanka dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo maamulka dawladduba runtii arrintan aad ay uga xumaadeen ku dhacday musiibadan reer Hiiraan wayna ka tacsiyadeen. sababtiin hadda gobolkan waxa jooga xildhibaano iyo agaasimiye guud oo wasaaradda arrimaha gudaha runtii gurmad guud ah socda dadaal guud ah socda reer Hiiraan insha Allah way ka kaban doonaan arrintaas aad oo maadsan insha Allah. si kastaba ha ahaatee qarax ismiidaamin ayaa ahayd markii shalay uu ka dhacay magaalada Beledweyne taasoo dad badan ay ku dhinteen isla markaasina dad kale ay ku dhaawacmeen. xaaladda magaalada Beledweyne ayaa maanta degan. Zola Maxamed TV-ga caalamiga Somali Channel Beledweyne. afar iyo 10 ruux oo dhaawacyo halisa ay ka soo gaareen qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa waxaa la gaarsiiyay cisbitaal ku yaala magaalada Muqdisho kadib markii dawladda dhexe ee wadanka Soomaaliya ay u soo dirtay diyaarad khaas ah oo markaasi dadkaasi lagu soo qaadayo. Solo Maxamed Solo wariyaheena jooga magaalada Beledweyne ayaa warkan halka ka soo diray. dadkii shalay ku dhaawacmay qarax ismiidaaminta ayaa maanta loo dhoofiyay magaalada Muqdisho ayadoo diyaarad ay soo direen wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga ee qaranka Soomaaliya. garoonka diyaaradaha waxaa ku sugnaa xubno ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo xildhibaano iyo xubnaha ka socda wasaaradda arrimaha gudaha. waxaa ilaa 14 qof oo dhaawac loo qaaday magaalada Muqdisho. gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka oo asaga dhankiisa ka hadlay ayaa wuxuu sheegay in ay dadkan yihiin kuwa halisa dhaawacyadooda. masiibadaas oo in loo xasuuqo dad rayid ah oo hadda adiga iyo wasaaradda arrimaha gudaha